sowlamayna socon awal dawladda Puntland inay tahay maamulkii ugu horeeyay ee burburkii kadib ka curta Soomaaliya ismaamulkii ugu horeeyay oo hirgashay nidaam dawladeed oo udub dhaxaad u noqda dhismaha dawlad qaran iyada gadaasheed maamulkii ugu horeeyay dalkiisa aragti guuleysatay taasoo ah Soomaali mid ah waxna wada leh waxna kala leh aan kuugu dare waa maamulkii ugu horeeyay oo dhisay ciidan badeed oo awood leh oo sumug leh uga howlgala una difaaca dalkiisa bad iyo bariga kuwaasi oo ah ciidamada badda iyo bariga Puntland ee BMPF dareenteen oo fahanteen ubuucda qorshaheena aan kula socodsiiyo ma ogtahay in Puntland ay u buuxsantay 26 sano oo kaamil ah asaaskeeda kadib 1 Agoosto 1998 aan hoos u daadago oo aan isla eegno 26 sano kadib Puntland waxay ka dhaxashay asaaskii ciidamada badda iyo bariga Puntland ee BMPF kuwaasoo dhidibada loo taagay 14 sano ka hor waqti Soomaaliya oo dhan iyo Puntland baahi weyn loo qabay helidda ciidan tayo leh oo ka howlgala badaha dalka kana difaaca cadawga muwaadiniinta Soomaaliyeedna gaashaan uga noqda hagardaamooyinka dalalka shisheeye ay kula kacaan badaheena sida aynu garan ognahay dalalka kaalmaha hore uga jira wadaha tayada ciidamada adduunka waa kuwa dhisay tayeeyay qalabeeyay ciidamadooda badda si la mid ah sidaasi 26 sano kadib Puntland waxay maanta ku naaloonaysaa dhaxalkii ay ka dhaxashay dhismihii ciidamada badda Puntland ee BMPF kuwaasoo kaamilay oo ka gungaaray hadafkii loo asaasay aan eegno maalmihii kharaara ee ciidamada BMPF badbaadada u noqdeen Puntland asaaskooda kadib iyo kaalinta ay ku leeyihiin dawladnimada aafadii burcbadeedda ka hor asaaskii ciidamada BMPF Puntland waxay wajahaysay aafadii adkeed ee burcbadeedda taasi oo si adag u saameysay nabadda xasiloonida amniga qiyamka iyo taariikhda guunka ah ee dhul udug sidoo kalena khalkhal gelisay dhaqaalaha iyo isu socodka gaadiidka badda ee u kala goosha daafaha dunida ee isticmaala badaha dalka gaar ahaan Puntland iyo kuwa caalamiga ah ee xuduudda la leh badaheena ciidanka BMPF waxay wajaheen iyagoo dhisa muddo yar oo kooban gudaheed kooxo abaabulan hubaysan oo awood leh waxayna ku soo afjareen muddo kooban taasoo sare u qaaday amnigii iyo xasiloonidii badaha Soomaaliya taariikhdii iyo qiyamkii guunka ahaa ee ay lahaayeen dadka Puntland howlgallada lagu ciribtira burcbadeedu waxay noqdeen kuwa taariikhda Puntland iyo tan ciidamada BMPF baal dahaba ka gashay waxayna sumcad iyo amni la isku haleyn karo ku soo dabaaleen biyaha Puntland waxay soo celiyeen amniga iyo kala dambeyntii bulshada waxay si weyn u kaabeen nidaamkii dawladnimada iyo saraynta sharciga la dagaalanka argagixisada kadib ka gungaaridii aafadii burcbadeedda waxay ciidamada BMPF sidoo kale qayb lixaad la ka qaateen howlgalladii lagu ciribtirayay argagixisada waxay goor kastaba iyo waqti kastaba si nafurnimo leh u difaaceen diintooda dalkooda iyo dadkooda gulufyada ay ka soo hooyeen guulaha la mahadiyey ee taariikhda galay waxaa ka mid ah dagaalkii Suuja Garmaal iyo qaybo ka mid ah gobolka Mudug ka hortagii difaacidii nafhuridii iyo halgankii guuleystay ee ciidamada dawladda iyo kuwa BMPF oo isku dhufan ay kaga hortageen argagixisadii damacoodii khaldanaa hoday ee ka soo degay deegaanada Suuja Garmaal ee gobolka Nugaal iyo qaybo ka mid ah gobolka Mudug kuwaasoo la dhaxalsiiyay jab weyn oo geysiiyay dhimasho tirabeel ah dhaawacyo halis ah firxad jahabeel ah iyo kuwa iyagu iskoo nafta isku dhaafiyay kadib markay arkeen awoodda wax madulmiyayaasha difaacanaya dalkooda iyo dadkooda xoreyntii degmada Qandala ciidanka BMPF waxay door muuqda ka qaateen dib u xoreyntii saacado kooban kadib degmada Qandala ee gobolka Bari kadib isku daygii liitay ay cadawga argagixisada ku soo weerareen kuwaasoo ugu dambeyn ka dhaxlay damacoodii jab iyo guuldarro weyn ciidanka BMPF waxay si joogto ah u fuliyaan howlgallo ay ku difaacayaan dalkooda kuwaasoo uga hortagaan damaca cadawga goor horeba waxayna kala dhantaalaan
isku day walba oo ay ku fakarayaan, taasi oo dhulka uduga iyo shacabkoodaba geysiisay inay ku noolaadaan nabad, ku ganacsadaan xasilooni, ku safraan warwar la'aan meel kastoo ay doonayaan bad iyo bariba. La dagaalanka jariifka, mukhaadaraadka, argagixisada badaha, tahriibka iyo hubka sharci darrada ah. ciidanka BMBF waxay saldhigyo ku leeyihiin dhammaan deegaanada xeebaha ah ee Puntland, kuwaas ay cadowga ugu diidaan inay fursad u helaan soo gelidda dhulka Puntland. waxay kaga duulaan wax kastoo liddu ku ah amniga iyo xasiloonida deegaanada Puntland, sida la dagaalanka jariifka, mukhaadaraadka, argagixisada badaha, tahriibka iyo hubka sharci darrada ah. saldhigyada guurguura iyo sugidda amniga goobaha muhiimka ah si loo sugo si hagar la'aan ah oo mas'uuliyadda ku jirta amniga dhulka iyo dadka Puntland. taliska guud ee ciidanka BMBF wuxuu hirgeliyey hindisaha saldhigyada guurguura, kuwaas oo shaqadoodu tahay inay ka jawaabaan si degdeg ah meel kastoo ay ka soo cusboonaato xaalad amni, mid dabiici ah iyo u gargaaridda shacabka waqtiyada adag. waxa uuna qorshahani noqday mid guulaystay oo midho dhalay kana hirgalay bad iyo bariba xuduudaha Puntland. yoolasha taliska guud ee ciidanka BMBF waxaa meel sare uga jirta sare u qaadidda wada shaqaynta amniga ee ciidamada iyo shacabka, taasi oo leh laba dhinac oo muhiim ah: taageerada bulshada waqtiyada adag ee mudnaanta leh in la garab istaago oo gaashaan loo noqdo duruufo walba oo soo wajaha, mid dabiici ah iyo mid amniba, iyo in la abuuro jawi wada shaqayneed oo ay sal u tahay fahanka mas'uuliyad wadareedka amni ee qof kasta oo muwaadin ah saaran si looga gungaaro xogta cadowga. 14 sano oo ay jiraan ciidanka BMBF waxaa yoolkaasi looga gungaaray si waafi ah oo midho dhal leh. sidoo kale qorshahani waxaa barbar socday sugidda amniga goobaha muhiimka ah, doorashooyinka, sugidda amniga mas'uuliyiinta sarsare ee dawladda, iyadoona ay ciidamada BMBF mas'uuliyaddaasi uga soo dhalaaleen si mug leh oo la mahadiyey. waxaana ka mid ah goobaha ay amnigooda gacanta ku hayaan ciidamada BMBF garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso, dekedda magaalada Boosaaso, sugidda amniga doorashooyinka. waxaana lagu xasuustaa siday u sugeen amnigii doorashooyinka qof iyo cod ee golayaasha deegaanka Puntland ee ka dhacay 33 degmo. Puntland 26 sano kadib waxay guranaysaa midho ay beeratay, kuwaasoo ka dhaxashay amni, nabad iyo horumar dhan walba leh. sidaasi si la mid ah ciidamada badda Puntland guyaasha u tarmay iyana waxay tirsadeen qorshayaal horey qalinka loogu duugay fulintooda oo 14 sano kadib maanta aan hoosta ka xariiqayno ka gungaaridooda si wax ku ool ah. oo waxaad ku garan kartaa inay maanta hormuud ka yihiin ciidanka BMBF howlgallada midaysan ee sugidda amniga badaha, dawladaha geeska Afrika iyo wada shaqaynta dhow ee ay la leeyihiin hay'adaha caalamiga ah ee ku howlan nabadda iyo xasiloonida badaha adduunka. BMBF waa ciidan u dhisan difaaca dalkooda, goor walba u heelan u gargaaridda shacabkooda, tayaysan oo u diran inay buuxiyaan kaalin walba oo ay u idman yihiin. BMBF waa wehelka iyo waardiyaha shacabka Puntland goor kasta iyo goor walba.